gabadhan ayaa imaanaysa guriga walaalkeeda waxayna arkaysaa odagaan meesha tirtiriyo markaas ayay qoslaysaa waxay leedahay walaalkeyga wuxuu kaysta shaqaale cusub anigana ma ii sheegin waxay ku leedahay adiga ma soo jeesa kartaa sidaan ku arko odiga ayaa meesha kasoo kacay wuu soo jeesnaya gabadha markay aragto way naxaysaa way qaylinaysaa waxay leedahay aaba maxaa kugu ma xanuunsan tahay waxay leedahay aaba waa maxay waxa aad samaynayso odigana isboojinaya wuxuu leeyahay gabadhayga sidee tahay waxay leedahay aniga sidaan iska dhaafi waa maxay shaqada aad qabanayso asigoo gabadha la hadlay ayaa waxaa soo galayo walaalkeeda wuxuuna leeyahay aaba hadda mayaa timaaday sidee tahay ayuu ku leeyahay waxay leedahay aniga sidaan ahay iska dhaaf waa maxay sida foosho xun aad aabeyga kula dhaqmaysan aabeyga miyaa shaqaale ka dhigateen xaaskaaga maxay guriga ka qabanaysaa ayay ku leedahay waxaa imaan ninkan xaaskiisa waxayna gacanta ku sidataa dhar odiga ayayna bilaabaysaa in ay su-aal weydiso waxay ku leedahay waa maxay dharkayga banaanka aad aaga soo tagtay ma aadan soo dejinin gabadhiisa ayaa soo boodiso waxay leedahay waa maxay xushmad darada aad kula dhaqmayso odaygani ha hilmaami inuu yahay sodogaaga waxay u sheegaysaa ayada inta badan in ay maqan tahay aabaheedana oo joogo guriga sidaas darteed ay go-aansatay in aabaheeda ka shaqeeya guriga howlaha gurigana asiga oo qabto waxayna ku leedahay midaas hadoo sameeyo maxay dhibaysaa gabadhaani ayadana aad ay u xanaaqsan tahay waxay leedahay aabeyga in aad sidaan kula dhaqantaa ma ehena aabeyga waxaa loo baahanaya hooshin inaad idinka qabsataan aabeyga ma inaad ka dhigataan shaqaalo gabadhaan ayaa dhis waxbaa qeylin isdeji waxaase waa caadi uga dhacaan waxay leedahay aabaad aniga saxaan ayaan u falaya meelaha dadka waayilada waxaan aniga ma geenin waxaan u ogolaa inuu gurigayga joogo cuntadeena wuxuu ku cunayaa si free ayay ku leedahay ha hilmaamin ayay ku leedahay odagan inuu yahay sodogaaga mana ahan ixtiraam darada in aad kula dhaqanto walaalkeeda ayay kusoo jeesanaysaa waxay ku leedahay maxaad ugu qeylinaysaa asiga waa ninkeyga mideeda kale aabahaaga saxaan ayaan u sameeyey weydii asigaba waxaan aniga u sameeyey waxaan u ogolaaday maalinkii oo dhan inuu waxyar oo ka shaqeeya gurigaan ma ahan aabeyga inaad sidaan kula dhaqanto walaalkeedna waa aaminsan wuxuu sheegay ayuu la-yahay fadlan ah hilmaama in aad furto calaamada gambaleelkaas si aad ula socoto muuqaal baan soo gelino muuqaalkan laagale sheergaray asxaabta la wadaag intaas waxay inoo tahay dhiirgelin gabadhan waxay yaaban tahay waxa ay sameeyeen gabadhan waxay ku leedahay maashada waa maxay wax qaldan adiga saanaad had ugu xanaaqayso waxay ku leedahay wax qaldan miyaana sameyn weli waad iskula saxanta Soomaan inaad aabeyga sidaan kula dhaqantaan walaalkeeda ay ku leedahay walaal waan arkisaad kula dhaqanta aabeyga gabadha aabeeda ay gacmaha ka qabanayso xilada aaba maanta laga bilaabo aniga ayaad ilaacaysaa meeshaan aniga joogayaad ila tagaysaa odaga wuxuu damcayna wiilkiis wax u sheegay laakiin wiilka uu iska aaminsan yahay filinta ayuu iska tirtirayaa gabadhiisna waxay ku leedahay aaba aniga aad ilaacaysaa meeshaan kuma ogolaanay mardab in aad sii joogto aabeeda ay gacanta kasoo qabanaysaa walaalkeedna waxay u sheegaysaa in ay usoo laaban doonto gurigan isku qoran yahay magaca aabaheeda waxayna leedahay markaan maxkamadda aan ka soo caday magaca guriga ku qoran ayaan inii soo laabanaya markaas ayaana la ogaanaya cidda iskale guriga ninkan xaaskiisa ayaa ku xanaaqaysa waxayna ku tuuraysaa marada ee wada waxayna galaysaa gudaha